qofku marka uu ku mashquulsan yahay shaqooyinkiisa ama uu ku sugan yahay goob waxbarasho ama uu wadada marayo intaba waxa uu heli karaa maqaayada wareegto oo uu sida maqaayadaha caadiga ah ka dalban karo hadba cuntada uu xiiseynayo. maqaayada wareegto oo ah gaari weyn oo midab gaar ah leh ayaa ku wareega jidadka waaweyn isagoo adeega cuntada bisil ah u diyaarinaya dadka sida uu ku waramayo milkiilaha gaarigan maqaayada ah oo markii ugu horeysay muddooyinkan dambe caasimada ka soo muuqday. Soomaaliya waxa ku arkay waxa waay itus itaabsi awal gaariga marka arki jireen waxay dhigeen waxa way cusub tahay laakiin hadda waxay si jeclaadeen raashinka si jeclaadeen hadda aragtid broosada asubna iyo raashinka asubna aad dubteen waxay u eg tahay naqshada taasay ku doonaa laakiin ani xoog waxa saara quality naqshada soo eg tahay ina sabro waaye hadda naqshada u ekeen lacagtaas waa free raashinkaas free asina horta Soomaaliya marka u fiirisid waxa la dhahay emerging market waxa la dhaho waa virgin wax kasta oo aad ka fikir kartid waa la suubi karaa bariya badan ma jirto oo checkpoint badan ma jirto maogta hadda wax ka fikirtid waxyaalo badan jirto aad ku suubi kartid maogta adeeg ma aha Maxamed taas oo arkay dad badan ayaa gaarigan ku soo xooma si ay cunto uga gataan qaar kalena waxa ay ka soo wacaan qadadka telefoonada si ay u dalbadaan cuntada ay jecel yihiin inta badanna dalabka cuntadu waxa uu badan yahay xilliga qadada. sidee kuugu dhalatay fikradda ama hindisaha samaynta maqaayadaasi adeegoodu socodka ku dhisan yahay sideese looga soo dhaweeyay Muqdisho mase jiraan qorshe meelo kale lagu gaarsiinayo ayaan weydiiyey mar kale milkiilaha. waxay igu dhariyay horta koow maqaayad badan ana horta Soomaaliya u soo goori maqaayad badan markaa gala waxay isiinayaan menu isiinayaan marka waxa dalbada may isiinayaan marka dhaniya waxa ka maqan cheese ka maqan waxa ka maqan waxa la dhihi jiray igu dul qaada iyo ina ii khalay saaxiib isku cunto waxa ku siiyay waxa soo nacbanaa jiray iyo marka leedo tag marka soo dabaalado ana khayaan ina hotelka gal ma jecleen so meesha ka imaad Australia gaariyaashan way buuxaan oo badal jaalaan city-ga joogaan waa cunto fudud ay suubiyaan adoo inta isku maanad cunto ka dalbanaysaa waa qaadanaysaa waa bixaysaa maogta oo waa fadhiisan kartaa hadaa rabtid so waxa dhahay firkadaas ma hamarkeena saas ku dhalatay. dad badan ayaa cuntooyin ka iibsanayay maqaayadaasi waxayna qaarkood aaminsan yihiin in maqaayadu ka fududeysay in guryaha ku laabtaan ama maqaayado meelo dhaadheer u tagaan si ay uga soo cunteeyaan waxayna ii sheegeen in fikradaha noocan ah ay yihiin kuwa dadku ku dhiirigelinaya in ay la yimaadaan ahla abuur shaqo. runaantii markii hore waxaan uga degay jiray maqaayadaha aad jiray laakiin markii dambe waxaa lagu keenaa goobta shaqadeyda. runaantii waa cunto aad iyo aad u macaan badan dhadhan leh maasha Allah waxyaabaha aan ku doortay waxa kamid ah adigoo xafiiskaaga jooga lagu keenayaa halkii aad degan lahayd maqaayada aad lahayd Sahara Food maasha Allah intaas ayaan ku doortay adigoo calaashan waqti ka bixin time aad lumin xafiiskaaga joogo ayaa lagu keenayaa take away macna waxyaabo badan oo kala duwan yihiin hadii aan soo koobo waxa kamid ah dhadhanka cuntada waa taste sababtoo ah in markii hore waxaan cuni jirnay cunto local ah Soomaaliya inta badan laga isticmaalo laakiin Sahara Food waxay wadan ku soo kordhisay cunto ka duwan cuntada local lagu cuni jiray haday noqoto cuntada dibadda waan aad iyo aad ugu helay xagga dhadhankeeda macaanteeda maasha Allah waxa kaloo fududeysay halkii aan u degan lahaa maqaayooyinka waxyaaba isha kor ay u keenaysaa qaybteena xafiisyadeenna goobta shaqada runaantii waxyaabo badan ay calaashan keenan cuntooyin ka duwan si aniga hadda local markaa joogno waxaan isticmaalnaa pasta fries laakiin Sahara Food intaas wax ka duwanaya keento wadanka cuntadoodana aad ay ugu duwan tahay markii loo fiiriyo cuntooyinka dalka sida cuntada yaanyo kale cappuccino kale oo ice cream lagu sameeyay runtii Soomaalidu waxay taqaanaa ice cream shaah coffee lagu sameeyay diirmaad kulul laakiin Sahara Food waxay keentay coffee ice cream runtii oo ku cusub Soomaaliya. aniga iyo shaqaalaha shirkadda inta badan waxaan noo keenaa qadada xilliyada qadada iyo hadii aan ka soo qaad casriyo u baahno kale mararka qaar waxaan noo keenaa shirkadda Sahara Mexican Food anagoo ayagoo fadhigeena waliba noogu keena
xilligii hore mararkii hore waxaa noqon jirtay in aan banaanka qadada u doonano taasna waxaa nooga dhow jiray waqtiyo badan oo markaa maqaayad tagto maqaayad intaa u socoto waqtiga kugu socdo intaa ka imaanaysa waqti waaye cuntada markaa fadhiiso maqaayadaha Soomaalida waa barta inta badan nus saac waxaa laga yaabaa inay kugu qaato in cuntadii aad dalbatay aad sugto hadda laakiin meesha fadhiga lagu keenayaa waxaa waaye waqtiyada xataa waqtiga rabto adiga dalban kartaa markaa firaaqada leedahay isla markaa lagu keenayaa marka waxaa noo keena Sahara Mexico magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya dhalinyaro qurba joog ah oo wadankooda hooyo dib ugu soo laabanaya iyagoo ka samaysanaya hal abuur ganacsi Fayruus Jaalle Xuseen Shabeelle TV magaalada Muqdisho